waa kuwee sawirada ugu qaalisan dunida. Inkasta oo aysan sawiradu dad badan macno weyn la lahayn, haddana waa hantida ugu qaalisan ee dad badan oo lacag leh ay maal gashadaan. Waxaa laga yaabaa qaar badan oo idin ka mid ah in ay sawiradan u maleeyaan sharaxaad oo kaliya, balse ogow sawiradan qiimaha ay joogaan waa wax aan la malaysan karin. Haddii aad tahay qof farshaxamiiste ah ama aad hibo u leedahay sameynta sawiro macno leh, waxaa macquul ah in mar uun sawir aad samaysay uu noqdo mid qiimihiisa aadan filanayn. Muuqaalkan waxaan kuugu soo gudbinaynaa 10 sawir ee ugu qaalisan dunida. Lambar 10. Masterpiece oo uu sameeyay Roy Lichtenstein. Qiimaha sawirkan waa $165 milyan. Masterpiece waa sawir u muuqaal eg sida bogga koowaad ee buugaagta shactirada oo kale, wuxuuna sawirkan muujinayaa nin la sheekaysanaya haweeney ay gaari wada saaran yihiin. Sawirkan waxaa lagu iibsaday xaraash, waxaana iibsaday bilyaneerka Stephen Cohen. Lambar 9. New Coach oo uu sameeyay Amedeo Modigliani. Qiimaha sawirkan waa $170.4 milyan. Sawirkan waxa uu muujinayaa haweeney cawradeedu ay muuqato, waxaana lagu farshaxameeyay saliid. Sawirkan waxaa lagu kala iibsaday goob xaraash oo ku taala magaalada New York, waxaana iibsaday ganacsadaha iyo bilyaneerka Chinese-ka ah ee Liu Yiqian. Lambar 8. Les Femmes d'Alger oo uu sameeyay Pablo Picasso. Qiimaha sawirkan waa $177.4 milyan. Les Femmes d'Alger waa kelmad Faransiis ah oo markii la turjumo waxay noqonaysaa haweenka Algeria. Sawirkan waa mid ka mid ah kuwa ugu qiimaha badan ee uu sameeyay farshaxamiiste Pablo Picasso, waxaana ku dhaliyay fikradda sameynta sawirkan sawir kale oo yaalay gurigiisa oo uu sameeyay farshaxamiistihii Eugene Delacroix sanadkii 1831. Wuxuu bilaabay sameynta sawirkan dabayaaqadii sanadkii 1954, wuxuuna ku dhameeyay isla sanad gudihii. Sawirkan wuxuu ka mid ahaa tiro sawir ah oo uu iibsaday Victor Ansari Ganes isla sanadkaas, wuxuuna ka bixiyay lacag gaaraysa $212,000, wuxuuna sii iibiyay sanadkii 2018 isagoo ku sii iibiyay $177 milyan. Lambar 7. Pendant Portraits oo uu sameeyay Rembrandt. Qiimaha sawirkan waa $180 milyan. Sawirkan waxaa horay u lahaa qoyska Rothschild, laakiin waxaa markii dambe iibsaday 2 madxaf, kuwaas oo lacagta sawirka si wada jir ah u bixiyay. Inkasta oo uu sawirkan muujinayo 2 shakhsi, haddana waxa uu isku yahay hal sawir. Lambar 6. Violet, Green and Red oo uu sameeyay Mark Rothko. Qiimaha sawirkan waa $186 milyan. Sawirkan waa mid aad la yaabaysid marka aad aragtid. Isma dhahaysid sawirkan qof baa lacagta intaa la eg ka bixinaya, laakiin dadku isku dooq ma ahan. Waa macquul ani iyo adi in aan isku dooqnahay. Sawirkan waxaa iibsaday maalqabeen Raashiyaan ah oo lagu magacaabo Dmitry Rybolovlev sanadkii 2014. Lambar 5. Magaca sawirkan waa lambar 17A, waxaana sameeyay Jackson Block. Qiimihiisuna waa $200 milyan. Sawirkan xog badan lagama hayo. Waxaa la og yahay inuu iibiyay David Gavin Foundation oo uu ka iibiyay Kenneth Griffin, kaasoo la kala siistay lacag gaaraysa $200 milyan. Lambar 4. Nivea Faibo oo uu sameeyay Paul Gauguin. Qiimihiisuna waa $210 milyan. Magaca sawirkan markii la turjumo wuxuu noqonayaa su'aal ah, goorma ayaad guursanaysaa? Waana sawir lagu farshaxameeyay saliid sanadkii 1892. Sawirkan waxaa deen ahaan u haystay muddo gaaraysa 50 sano madxaf ku yaala magaalada Bale ee dalka Switzerland, ka hor inta aan laga iibin Sheikh Almayas bin Hamad Al Thani sanadkii 2015, kaasoo ku iibsaday lacag dhan $210 milyan. Lambar 3. The Car Players oo uu sameeyay Paul Cézanne. Qiimaha sawirkan waa $250 milyan. Paul Cézanne waa farshaxamiiste Faransiis ah, wuxuuna sawirkan ku nashqadeeyay saliid. Wuxuu sawirkan turjumayaa 2 nin oo ciyaaraya turub, kuwaas oo ay daawanayaan dad ka dambeeya. Waxaa iibsaday sawirkan qoyska boqortooyada ee dalka Qatar sanadkii 2011. Lambar 2. Interchange oo uu sameeyay The Cunin. Qiimaha sawirkan waa $300 milyan. Sawirkan waxaa la sameeyay sanadku markuu ahaa 1955,
sawirkan waxaa horay u lahaa David Gavin wuxuuna ka iibiyey ganacsada Kenneth Griffin waxayna kala siisteen 300 oo milyan qiimahan oo ka dhigaya sawirka mid ka mid ah sawirada ugu qiimaha badan dunida. Number 1 Salvatore Mundi oo uu sameeyey Leonardo da Vinci qiimaha sawirkan waa 450 milyan oo dollar. Salvatore Mundi waa sawirka ugu qiimaha badan dunida. micnaha magaca sawirkan markii la turjumo wuxuu noqonayaa badbaadiyaha adduunka. sanadkii 2015 waxaa xaraash ku iibsaday sawirkan Amir Badri bin Abdullah isagoo ka bixiyay 450 milyan oo dollar. wuxuuna amiirku sawirkan u iibiyey waaxda dalxiiska iyo dhaqanka ee Abu Dhabi waxaana markii dambe la sheegay in uu la wareegay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Mohammed bin Salman. waxaan soo gaarnay dhamaadkii muuqaalka. haddii aad jeceshahay daawashada muuqaalo noocan oo kale ah fadlan ka mid noqo asxaabta nagu xiran. mahadsanid.